إذا جرجارك كشقية خاصة كوا allocation كسمية حنو شيء أنا وإلى عشان مبادئ الدولة النمو بنتلان مشاريع هرمارينات وأن دنا هذه كأركوين الدولة النمو يضط كذا إنس أنفعين إن نكتشف إن دجانا ذي sidoo kalena aan awoodno waxyaabaha yaryar ee sandareertada ee ku bees gareysnayn ama ku saleysnayn baahida ee ku saleysan siyaasadaha inaan ayagana iska joojin doono hadii ayna ku laaban mabaadiidii gargaarka hogaamin jirtay 21 milyan baa hadda la qorsheeyay in la sii daayo inaga Puntland maxay ina kaga jira waa duruufta ogtiin ku jira waxa ina kaga jira hal degmo halka degmana waxa loo qoonday 1% 21 milyan kamid ah inta kale lacagtaas ee soo hartay waxay aaday koonfurta dalka marka Soomaaliya deeq bixiyaashu sii jireen sida uu u yaraaday iyo saameynta inaga reer Puntland hadda uu ku leeyahay tusaale sanadkan 2026 waxa la qorsheeyay si loo caawiyo dadka nugul waliba ayagoo loo sii kala sameeyay hortabin ama prioritization 850 milyan oo gargaar ah oo degdeg ah oo lagu caawinayo dad la soo kala priority loo sii kala sameeyay 852 milyan in sanadka 2026 arimaha gargaarka ee emergency-yada loo helo baa la qorsheeyay oo hay'adaha hawsha ku shaqo leh oo ayaa balangariyay laakiin sanadkii hadda kala bar si dhaafaya 21% baa ka soo gaartay halka marka waxa ka garan kartaa 21% 80% laba helin wixii la islaha 2026 hal looga jawaabo baahiyaha ballaaran ee dadka ay saameeyeen duruufaha kala duwan ee abaaraha iyo awalba dadkii aan waxba haysan ee horay u barakacay colaadii Soomaaliya ee deegaanada ku noolaa 21% baa soo gaartay inaga Puntland 21 ka marka maxayna ka soo gaaray hadana 21 kaas tiro dhaba ma hayo laakiin qiyaastii less than 1% bayna ka soo gaaray waxaana sabab u ah qodobo kala duwan waxaana tusaale u soo qaadanaya 1% inuu ka soo gaaray hadda ugu dambeeya SHF magacii waa maqashaan oo dadku wada maqlaan oo waa mashruuc lacag lagu aruuriyo oo looga jawaabo habda meeshii culays ka jira abaaraha iyo xaaladaha emergency-yada waqti kooban socdo badana hal sano ka yar 21 milyan baa hadda la qorsheeyay in la sii daayo inaga Puntland maxay ina kaga jira waa duruufta ogtiin ku jira waxa ina kaga jira hal degmo halka degmana waxa loo qoonday 1% 21 milyan kamid ah inta kale lacagtaas ee soo hartay waxay aaday koonfurta dalka wixii yaraa oo soo haray marka hadana sida inagu aynaan qayb uga ahayn ama wax macno leh ina kaga soo aadin baa garan kartaa sababay leedahay iskaba dhicin dabcan marka koowaad horta wixii yaraaday way sababta koowaad ee deeqihii caalamku siin jiray Soomaaliya oo yaraaday waa sababta koowaad oo waxa laga yaabaa de mararkii hore ragii ka shaqeyn jiray joogo lacaga aad iyo aad inta uga fara badan markii waxyaabahan kala jiraan in Soomaaliya loo qaybin jiray ka horta waa qodobka labaad waxa weeye dawladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda waqtigeedii dhamaaday oo siyaasadaysay dhaqaalihii koobnaa ee gargaarka iyo ha siyaasadaysa ma xumaa waa siyaasadaysa markaan leenahay waxa weeye qaybintii qoondayntii baan baahi lagu salayne qaab siyaasadeed degmo hebel aan dan ka leeyahay iyo maamul goboleed hebel baa aniga saaxiib ila ah iyo wax la mid ah way siyaasadaynta aan sheegaynaa baa lagu qoonday intii koobnay horta dawladda federaalka hadda waqtigeedu dhamaaday baa siyaasadaysay laakiin nasiib darrada weyn waxay tahay hay'adihii gaar ahaan kuwa qoondada qaybta ka ah ee wax qoondeeya ee coordinationka iyo qoondada iyo allocations kale barnaamijyada humanitarian ka hadlaya ama gargaarka ama emergency-yada
waxay u hoggaansameen oo ku milmeen siyaasadda guraacan ee aan ku salaysnayn baahida ee ku salaysan favorismka ama danaha ayay ku milmeen oo u hoggaansameen oo fuliyeen arrintaas waxaadna moodaa markaas hay'adaha hawlaha ku shuqul leh inay dhumiyeen waxyaabihii la oran jiray humanity iyo dhexdhexaadnimo iyo mataqaanaa dhinacna inaysan la jirin inay meesha ku dhuntay baa moodaa waxaa kaloo muuqata marka hadda aan leeyahay kan ugu dambeeyaan tusaalaha u soo qaatay hal degmada nooga jirta halkaa degmana 1% loo qoondeeyey magaalooyinka qaar waxaa loo qoondeeyey 5 milyan 4 milyan adiga degmada haddan annaga naga soo gashay waa midda ugu lacagtiir ama hal degma ka lacag yar baa la oran karaa marka aqligu haddii hadda gargaarkii maadaama uu yaraaday hay'adihii qaab bay la yimaadeen ah in lagu qaybiyo waxa yara yaala baahi sida loo kala daran yahay marka yaa ina ka dhaadhicinaya gobolka hadda tusaale hadda aan soo qaata raas casir oo xeebta ku yaala ama xeebaha Puntland oo dhan badankooda wax rooba dhowr sano ka badin dadkana xoolihii inta badan waa dhaafeen waxa ka harayna macna male karkaar ilaa xaafuun ilaa mudug xeebteeda ka soo bilow ilaa waxa ku tagtaa meesha la yiraahdo laas qoray waa kee marka qofka ku dhahaya waxa ka prioritisation meel kale baa ka mudnaanta kuwaad kale waa wax la aqbali karin way caddahay markaas in intii yaradu taalay farsamooyin aan mabaadi'dii gargaarka baalmarsan in lagu maamulay marka horta xaalku ina halka uu marayo in dadkeenu fahmo baan u sheegnaa ina cid dhaliil u sheegi mayno halka haday marayso marka laakiin hay'adaha gargaarka ka shaqeeya khaasatan kuwa allocation ka sameeya waxaan u sheegnaa anagoo ilaashanana mabaadi'deena iyo dawladnimada Puntland mashaariic horumarineed oo aan danahadeega ka arki weynay dawladnimo iyo dadkayaga inay anfacayn inaanu ka joojinay deegaanadayada sidoo kalena aan awoodno waxyaabaha yaryar ee sandareertada ee aan ku bees garaysnayn ama ku salaysnayn baahida ee ku salaysan siyaasadaha inaan ayagana iska joojin doono haddii ayna ku laaban mabaadi'dii gargaarka hogaamin jirtay